runtii sharafay ii tahay inaan maanta hortiina soo istaago aniga oo gudanayo waajibaad dastuuri ah oo ah inaan furno kala fadhigii saddexaad ee baarlamaankii labaad ee koonfur galbeed. aada iyo aada ugu mahadsantihiin saa uga soo qayb gasheen uguna soo diyaar garowdeen furitaanka kala fadhiga saddexaad. marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo shaqadii fiicnayd ee aad soo qabateen labadii kala fadhi oo kala fadhigan ka horreeyey oo idiin furnayd, oo shaqo aada iyo aada u fiican oo xukuumadda iyo shacabka reer koonfur galbeedba ay aada ugu qanceen oo aada ugu farxeen aad qabateen. ugu horeysay sharciyadii iyo miisaaniyaddii iyo hindisa sharciyeedyadii aa ansixiseen iyo kuwa aada akhrinta koowaad iyo akhrinta labaadba mariseen, iyo sida akhlaaqda iyo aqoonta iyo kartida iyo ilaalinta sharciga iyo hufnaanta ay ku jirto aada u shaqaynayseen muddadii labadii kala fadhiba idiin furnaa. sidaasoo kale waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo matalaadda dhabta ah ee aada samayseen. aada u samayseen inaad tihiin wakiiladii golaha shacabka, aadna uga wareysaan shacabkii aad wakiilada ka ahaydeen meel walba oo joogaan, sida dareenka leh oo aada waktiga kala fadhiga uu xiran yahay aada wakti ugu qaadataan nin walbaba constansigii uu ka soo jeeday aad u tagteen oo aada ula wadaagteen shacabkiina daruufta culus iyo marxaladda adag iyo go-doonka iyo dhibaatada iyo ciriiriga ay argagixisada caalamiga ahoon naxariista lahayn ay gelisay aada uga warhaysaan oo maalin walba u ag taagan tihiin oo deegaanada xorta oo dhan aad u tagteen. aada iyo aada ugu mahadsan tihiin. shacabkana aada bay ugu riyaaqsan yihiin. xukuumadda oo madaxweynaha ugu horreeyana aanan ugu faraxsannahay, wax hore loo arkayna maaha. in golaha shacabka koonfur galbeed meel walba oo koonfur galbeed joogto la tegi kara ay tagaan ayagoo shacabkooda waxa uu qabo la socdo. saan la soconno galfadhiga hadda ugu dambeeyey xildhibaanada deegaanadoo dhan ay tegeen. labada gees oo koonfur galbeed ugu geesaysa labadaba waa tegeen. ceel barday tegeen, qurac joomay tegeen, yeed bay tegeen, aatay tegeen, baraawna waa tegeen oo geeska kalea inta u dhaxaysa intaba waa tegeen ayagoo shacabka iyo xaaladiisa iyo wuxuu ku sugan yahay qeyb ka qaadanayo. marka waxaan dhihi karaa waa ku ammaanantihiin shaqadiina iyo dadaalka dheeriga oo aada geliseen matalaadda shacabka iyo waajibaadkiinii dastuuriga ahaa oo baarlamaanka sidaa u gudateen. aada iyo aada ugu mahadsantihiin. haddana waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tii iyo kasii fiican iyo shaqada adag oo idiin taallo saa u gudan lahaydeen. saa la socotaan dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay dadaalo tiro badan ugu jirtaa sidii dowladnimada loo gaarsiin lahaa shacabka, loona daadejin lahaa nidaamka federaalismkana loo horumarin lahaa oo loo bari lahaa dadka reer koonfur galbeed si aan u noqonno astaan fiican oo lagu daydo oo ay soomaalida kale iyo isteedyada kale ay ku daydaan, maadaama aan wax badan aada u aaminsannahay inuu nidaamkan federaalka uu xal u yahay ummadda soomaaliyeed. sidaas darteeda waxaan bilownay inaan
daadejinno maamulkii oo aan ka shaqayno hoos laga soo bilaabo si loo sameeyo dhismihii golaha deegaanka dadka ay ayaga isi soo doortaan ayna doortaan ciddii ku matali lahayd maamulkaas degmada. degmooyin badan aan ka bilownay, waxna waa noo soo dhammaadeen, degmooyinka kalena waa noo socdaan annaga oo waajibaadka annaga gudanayno, daadejinaynana maamulka, gaarsiinaynana dowladnimada iyo nidaamka federaalka meel kasta oo koonfur galbeeda tuulo ilaa iyo degmo. saa la socoteen degmada diisool waa noo soo dhammaatay, waxaan ugu guulaysanay si aada u qurux badan, si fiican ayna u shaqaynaysaa iyada oo aan sida loo dhisay aanan weli la arkin oo adduunyada dhan wax looga faana ay noqotay. 50% gabdho laga dhigay. maamulka hufnaanta iyo horumarka markii laga reebo caqabadaha amni oo ku wareegsan iyo wada shaqaynta golaha deegaanka wax la sheegi kara maaha sida uu fiican yahay. sidaasoo kale usbuucan bishan gudaheeda bishii June waxaa noo soo gabagaboobay dhismihii golaha deegaanka degmada Waajid oo ayadana sidaasoo kale caleemasaarkiisii 2 isbuuc ka hor aan u tagnay si aad iyo aad u fiicanna kusoo dhammaaday. dadka deegaankana ay ku faraxsan yihiin ayna keensadeen 22 xubnood oo dadka deegaankaas degan golihii deegaanka u noqdo guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ay ku kalsoon yihiin oo dhalinyaro ah oo ay horey usoo tijaabiyeen ay doorteen. ayadana si fiican oo qurux badan oo guul ah ayay kusoo dhammaatay. sidaasoo kale waxaa socdo degmooyin badan oo gabagabo noqon doona mar dhow dhismihii golaha deegaanka oo ugu horeyso degmada Baraawo oo fayskii 3aad ugu dambeeyay ee qaybintii ergada iyo power sharingkii iyo gabagabadii marayso. insha Allah tacaala iyadana waa la soo gabagabayn doonaa si guul ah noogu soo dhammaan doontaa. sidaasoo kale waxaa process noogu jiro degmooyinka shabeellada hoose, Marka iyo Walaweyn oo ayagana sida ugu dhaqsaha badan loo qaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo. saa la socotaan si golihii deegaankii looga dhiso degmada Walaweyn muddadan dambe caqabado iyo culaysyo maamulka meeshaas ka jiray ka yimid oo saameeyay shacabka yaa jiray iyo isu socodka jidka isku xiro Xamar iyo koonfurtan Soomaaliya oo ay lafdhabar u ahayd. waa magaalo weyn oo istiraatiijik ah magaalooyinka Soomaaliya ugu waaweyn ka mid ah. caqabado badan yaa ka yimid, si kastaba ha ahaato, si kastana ha ku yimaadeen markii cabashada badan ay noo timid oo shacabka Walaweyn iyo shacabka Soomaaliyeed ee jidka maraya aan aragnay. waxaan go'aansanay intaanan golaha deegaanka la gaarin in sida ugu dhaqsaha badan maamul cusub oo gaarsiiyo dhismaha golaha deegaanka qaybna ka noqdo inaan u samayno. maamulkii baa loo sameeyey, aad iyo aad ayna shacabka usoo dhaweeyeen. saa ogtihiin wasiiradii amniga iyo arrimaha gudaha yaa shaqo ugu maqan oo joogo, waxayna ka shaqaynayaan ay ku guulaysteen isbaarooyinkii sharci darrada ahaa iyo dhibaatadii lagu haayay shacabka inay maxay ahayd ay baneeyaan. waana ku guulaysteen odayaasha dhaqanka iyo shacabka reer Walaweyn iyo golihii wasiirada iyo maamulkii cusbaana si midnimo ah ayay uga shaqaynayaan sidii Walaweyn ay xasilooni iyo nabad ay u galeen. sidaasoo kale waxaan rabnaa inaan golihii deegaanka aan ka dhisno degmooyinka koonfur galbeed oo dhan oo hadda xorta ah. gobolka Baay waxaa noo haray degmada Fasax Dheere iyo degmada Buurhakabo iyo Baydhabo
oo caasimadda ku meel gaarkeedan ku shaqaynayno ayadana waxaan ka wadnaa qorshe fiican hadduu ilaahay yidhaaho kalfadhiga dambe waxaan kugu bishaarayn doonaa waxqabadka noo suurtagalay oo qabsoomay inay noqoto degmooyinkaas aan idiin sheegay oo dhan dhismahooda iyo oo lasoo dhamaystiray hadduu ilaahay yidhaaho sidaasoo kale saa la socotaan dhibaatada ugu badan oo shacabka soomaaliyeed iyo si gooni ah koonfurta soomaaliya iyo koonfur galbeedba saameeyey waa argagixisada shabaab si ummadda xal loogu helo caqabadahoodana looga gudbo waxaan muddadanba ka shaqaynaynay daraasaad iyo reformna aan ku sameynaynay iyo dhismada ciidamada noocyadooda kala duwan ee ka shaqeeya koonfur galbeed nooc kasta yihiin ciidamada SNM booliiska ciidanka koonfur galbeed gaarka ah nabad sugidda intaba waxaan ku sameynaynay inaan daraasaad ku sameyno reformna lagu sameeyo tababaro cusubna loo sameeyo si ay uga howlgalaan furitaanka jidadka iyo culeysyada iyo caqabadaha shabaabka ay ku hayaan wax badan yaa nooga suurtoobay diyaar garowgaas waxaan rajaynaynaa inay soo dhammaan doonto qorshihii iyo istiraatiijiyadii aan ku howlgeli lahayn oon kaga howlgeli lahayn koonfur galbeed sida culeyska hadda lagu hayo oo jidgooyada ah oo qaadicu dariiqnimada ah oo cadowtinimada ah oo ay ugu magac dareen cunaqabateyn yaan saaraynaa inaan ka gudbi doono insha allahu xalna loo heli doono sidaasoo kale maadaama baarlamaanka ay yihiin wakiiladii golaha shacabka aadna soo aragteen shacabkii dhibaatada iyo culeyska lagu haayo guddiga amniga ee baarlamaanka wuu xogogaalku u noqon doonaa wuuna kala shaqayn doonaa waana haddana wuu kala shaqeeyaa hay-adaha amniga waxaan rabnaa inaad hormuud ka noqotaan howlgallada iyo diyaargarowga loo diyaargaroobayo cadowga sidaa horeyba hormuud uga ahaydeen oo markii howlgal la aadayay baarlamaanka aada iyo aaday ugu mahadsan yihiin ay u hor socdeen ay u howlgalayeen in haddana sidoo kale loo howlgalo waxaan aada ugu farxay dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay daynunay markii ciidamada laga reebo waxa howlgalka ku jiray oo dadka ugu horreeyey oo hor socday xildhibaan ay ahayn xildhibaanada koonfur galbeed ay ahayn waajibaadkooda iyagoo gutay ayagoo shacabkooda inay badbaadiyaan rabaan iyo waxay qayb ka noqdeen howlgalladii lagu badbaadinayey shacabka waxay moral iyo kalsooni tuseen ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ayagoo aanan ka harin oo hormuud u ahaa hor socday sharaf weyn ayay tahay in baarlamaanka koonfur galbeed saas uu suubiyo arrimaha amniga marka culeysyadaas iyo howlahaas waxyaalahaas tirada badan ayaa nooga suurtagalay insha allahu wixii cilmi baaris ahna gabagabay maraysaa waana lainla wadaagi doonaa hadda wixii ka dambeeyana waxaan u diyaar garoobi doonaa sidii aan tallaabo u qaadi lahayn insha allah arrimaha siyaasadda saa la socotaan dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay lafdhabar u tahay hormuudna ka tahay dowlad dhiska soomaaliya nabadeynta soomaaliya isu imaatinka iyo isu keenidda iyo xal u helidda soomaaliya intaba yaa hormuud ka nahay muddo dheer oo hal sano ah waxaa socday arrimo dib u heshiisiin sidii dalka uu doorasho ku geli lahaa maadaama uu muddaxileedkii hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka uu soo dhammaaday
si loo helo heshiis doorasho oo heshiis lagu yahay muddo badan iyuu soo socday. heshiiskaas doorasho oo heshiiska lagu yahay oo muddada badan soo socday qayb muhiim ah iyo qayb lixaada oo dhexdhexaadnimo ah oo isu keenisa odaynimo ah oo soomaalinimo ku jirto oo dadka soomaaliyeed iyo shacabkaba loogu turaayo yaan ka qayb qaadanay. wixii marxalado la soo marana ugu dambeyntii shirkii hadda ugu dambeeyey dadka soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen inay doorasho qabsadaan, doorashona xor iyo xalaal ahna la galo, jadwalkeediina la soo diyaariyey, wax dhimanna aanan jirin, wax caqabadahna aanan jirin, loona diyaar garoobo deegaan kasta doorashada ay ka dhacaysa siday uga dhici lahayd dadka soomaaliyeedna lagu soo dhaweeyo. doorasho heshiis lagu yahay yaa soo qaadanay oo bilaabanayso bishan hadda aan ku jirno oo bisha 7 laga bilaabo. waxaa tilaabo loo qaaday jihadii doorashada. waxaa bilaabanaya diyaarintii jadwalka, waa aragteen odayaashii dhaqankii, diyaarintii ergooyinkii, diyaarintii xarumihii doorashooyinka ay ka dhici lahayd, diyaarintii aqalkii sare, doorashadii aqalka sare qaybta ugu weyn iyo cidda wax dooranaysa adinka waaye, iyo sidii aqalka hoosena doorashada uga dhici lahayd, ayna uga dhici lahayd labadii goobood oon horey u astaynay, caasimadda ku meel gaarka ah iyo caasimadda rasmiga ah ee koonfur galbeed ee Baraawe iyo Baydhabo. intaba waxay naga rabtaa diyaargarow tiro badan. waan u diyaargarownay, awalna waa u diyaarsanayn, haddana inta dhimanna waa dhammaystiri doonaa, waa u diyaargaroobi doonaa insha allahu. horeyna waa u wadnay oo meel fiican bay noo maraysay. sida jadwalka loo soo qoray oo doorashada loogu talagalayna yaan u qaban doonaa haddii ilaahay yidhaaho. wax dibudhaco lagu imaanayo male. nin walba oo mas-uul ah oo reer koonfur galbeed oo xildhibaanada koonfur galbeed ugu horeeyaan iyo wasiiradaba mas-uuliyad gooni ah yaa ka saaran, ayaga oo shacabkooda iyo dadkooda la kaashanayo inay qayb ka noqdaan matalaadda koonfur galbeed. dadka u matalaya dowladda dhexe inay ay xogaal u ahaadaan, qaybna ayna ka noqdaan siyaasadooda, ayna ka shaqeeyaan sidii dadka la isugu soo dubi lahaa, damiirkoodana ay u dooran lahaayeen, ayaga damiirkooda ay u dooran lahaayeen, ayna u dooran lahaayeen ciddii ku matali lahayd dowladda dhexe ee Soomaaliya. qaybta ugu weyn dadka ka qaadan doonaa noqon doontaan insha allahu. amni ha noqoto, siyaasad ha noqoto, ka warqab ha noqoto, intaba lainkagama maarmo. muhiim baan u tihiin, qayb baana ka qaadan doontaan hadduu ilaahay yidhaaho. arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinkana qorshahaas fiicanay noogu soo dhammaadeen. aada iyo aadaan inkaga mahad celinayaa dadaaladii tirada badnaa iyo intii aan ka tegayba oo aanan sheegin. runtii kalfadhigii hadda ugu dambeeyey hindise sharciyeedyo badan yaa la ansixiyey. uu ugu horeeyo miisaaniyaddii, sharcigii hanti dhowraha guud, kuwo kalena aqrin 1 iyo 2 la mariyey. haddana waxaan rajaynaynaa inaa ansixin doontaan sharciyaadka shaqaalaha, kalluumaysiga, sharcigii dhulka iyo hindise sharciyeedyo kale oo xukuumadda ay soo martay oo laidin keeni doono hadduu ilaahay yidhaaho, inaad ayagana ansixin doontaan. waajibaadkiina kalena aad shaqana aad gudan doontaan. aada iyo aadan ugu faraxsannahay sida baarlamaanka koonfur galbeed uu isugu xiran yahay, uuna ugu shaqaynhayo dalkiisa iyo dadkiisa, iyo sidii loo soo doortayna uu ugu shaqaynayo. aada ugu mahadsantihiin. waxaan ka rajaynhayaa shaqo fiican iyo inaad u shaqaysaan shacabkiina. kalfadhigii 3aad waa noo furan yahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.